Su'aasha kale, Assalaamu calaykum Cabdirashiid, magacaygu waa Axmed Yuusuf Maxamed oo jooga waddanka Switzerland. Waxaan ku weydiinayaa internetka markiisii hore maxaa laga sameeyay? Waad mahadsan tahay. Internetku dadka badankoodii waxa ay moodaan wax hawada iska socda, tani sababteeduna waa in badankeeni wifi aynu isticmaalno. Internetku waa fiilooyin dhaadheer ee qaaradaha adduunka oo dhan isku wada xira, waxa ayna ka gudbaan fiilooyinkani badaha iyo dhulka hoostooda. Xitaa magaalooyinka qaar ee maanta weli internet ma uusan gaarin, balse bilowgii aaladda internetka, koox yar oo arday ah ayaa waxa ay kombiyuutarada ku sameeyeen borograam kaas oo sida Bluetooth-ka oo kale oo laba kombiyuutar isku xiri kara. Marka laba kombiyuutar la isku xiray kadibna waxaa la bilaabay in mashruucani si aad ah loo ballaariyo, boqolaal kombiyuutarna la isku xirxiro. Mashruucani oo bilowgiisii arday jaamacad loogu talagalay ayaa waxa uu isku beddelay mid lagu wada xiriiro oo dhammaan adduunka oo dhan lagu baahiyo. Intaa kadibna waxaa la sameeyay website-yo, waxaana la isku dayay in macluumaadka internetka ku jiro taraafigoodii la qaabeeyo. Si kooban, internetka asalkiisu waxa uu ka bilowday borograam sida Bluetooth-ka oo kale oo aaladda kombiyuutarka u suuragelinaysa aalad kale in ay ku xiranto. Kadibna dunida marka lagu baahiyay waxaa soo ifbaxay satellaityo iyo in fiilooyin kala duwan oo dhaadheer oo qaaradaha adduunka isaga kala gudba.